يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم مسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له مسلمين تاميل كسيجوغان وان سلام يا سلام كدب waxaan halkan dardaaran ugu duubayaa dadka muslimiinta ah ee doonaya inay soo xajiyaan xajku sidii aan xalaqaad hore uga hadalnay waa rukni min arkaan al-islaam fadligiisuna lama soo koobi kara aad buu badan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala janno iyo wuxuu yahay dambi dhaaf qofkii xajkiisa u guta si wanaagsan oo ilaahay dartiis u guta nasaaixda aan rabo ama talooyinka aan rabo inaan siiyo xajka waxa ugu muhiimsan qofku si xajkiisu uu helo natiijadii la rabay in xajka laga gaaro oo dambi dhaaf oo xajkiisu uu baari u noqdo waxa muhiim ah qofku inuu niyadiisa uu marka hore ilaahay uu uga dhigo niyad saafi ah ikhlaas ilaahay subhanahu wa ta'ala amal aan isaga daraadiis loo sameyn ma aqbalo وما إلهي وحليه قرآنك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نبينا وحي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مركا عملك وحا كآكب أنيادا محادو آدي سحجك ما إن نقول هو سوء حكي ولذلك علماء مفسرين تا حجك بارغة وحا يكفسرين إنه يا حجك أيسن صدح قلين استسس الرياء والسمعة حجك إلهي درتيس لو آدي إلهي سبحانه وتعالى درتيس ما الحلالنا لو آدي أيا أهمارك حجك مبروك مركب وحن ولا الله كل تلينا يا مسلمين تا حجك وصعودة إني هرتني يدو خالص إلهي ودقان إلهي درتيس إني أني يودان يركن قاسوين إلهي وكفر الياري إني سوق قتان إني أجيبيان آدانكي يدواقي أبوه النبي الله إبراهيم عليه السلام مركو كعبضة إسي يقولك إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مركو أي بيت كلاه دميسترين أي إلهي أمرسي نبي الله إبراهيم ووحي إلهي يرددك ودواق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات مركا دتك ودواق بالي ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير كيسا وكورين يا ابن عباس مجاهد عكرمة يقير كود أثر إلهي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم دواق مركي ويري ويري له دواق يقيو قارهيا مركا سا إلهي ويري أدو دواق أنا قارسينين وحفولي ماركتي صفا روايات قارقود وحليه أبو قبيس قارقود وحليه مقام كيس أيو استاغي قارقود حجرقة أدو مايش دونه هاي استاغو دواقي مركو دواقي وحاو يري أيها الناس إلهي سبحانه وتعالى بيت أي هيسيه بيت كاسنا وحو أمرين لو سو حجيه فحجوا سو حجيه مركاسا سيدة ابن عباس اللي قولي أثر كاس وحي ليهين إلهي سبحانه وتعالى بور والبا يجيد والبا hoos buu u dhigay ilaa dhawaaqi uu gaaray meel walba hatta ahjaarta iyo dhagxaan geedaha iyo cid walba oo ilaahay uu qoray ilaa qiyaam inuu soo xajiyo ilaahay uu gaarsiiyay subhanahu wa ta'ala waana midda ay leeyihiin xujaydu markii ay talbiyeysanayaan labbayk allahumma labbayk ilaahu waan ku ajiibnay dhawaaqi nabi ibraahim noo dhawaaqay inaan bayt ku soo xajino ilaahu waan ajiibnay ay leeyihiin marka runtii waa nicmo weyn qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fududeeyo oo waafajiyo inuu soo xajiyo waa tawfiiq dad badan ayaa ilaahay waafajin oo maal haysta oo awooda qofkii ilaahay uu waafajiyo waa nicmo min Allah hadaba xaaji qofka muslimka ay xaajiga ahaw amalkaas weyn oo ka ratamiyo dam dhaafka iyo jannadu
waxa loo baahan yahay inaad ilaahay dartiis aad u soo gudatid wax haba yaraatee istusus iyo halgu arkay iyo xaaji way halgu inaadan aad maaragtay aysan ka soo dhexgelin arrinka labaad loo baahan yahay waxa weeye inaad maal xalaal ah aad xajku ku aadid maal xalaal ah inaad xajka aad ku aadid ilaahay waa tayyib mana aqbalo waxaan tayyib ahayn buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam kii wanaagsan waaye wax wanaagsan ayuu aqbalaa wax xalaal ah maal xalaal ah maaragtay ku aad xajka waxaan kaloo idin kula dardaarmayaa inaad dadka iska cafidaan maxaa yeelay waxa u socotaa ilaahay inuu ku soo cafiyo ku dambi dhaafo adiguna khalqiga ilaahay cafi waxa kaloo muhiim ah ilaahay subhanahu wa ta'ala in loo toobad keeno oo ilaahay maaragtay la yiraahdo ilaahay waa ku toobad keeno toobad nasuuxa toobada nasuuxana waxa weeye in qofku uu ka qoomoodo wixii ka dhacay in uu ka shalaayo in uu goosto dib dambe inuusan ugu noqon in uu ka xumaado ilaahayna uu weydiisto subhanahu wa ta'ala hadii xoolo dad uu qaatayna uu dadkii wuxuu u celiyo hadii uu dad maaragtay xantay ama cirdigooda uu ku xadgudbayna uu ka dalbado inay cafiyaan ayaa loo baahan yahay marka waxyaalahaas waa waxyaalaha aadka muhiimka u ah si xajkaagu uu noqdo xaj mabruur ah baari ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aad soo noqotid ka yawmi waladadka ummuk sidii maalinta hooyada ku dhasho kale uu ahaado xajkii nabigu yiri al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna marka waxaan idin kula dardaarmayaa in aad maaragtay aad toobad keentaan waxa kale oo dadka xujayda lagu dardaarmayaa in intaysan safarka xajka aysan u bixin in ay qoraan wasiyadooda laano waa safar wax kasta kugu dhici kara qofka muslimka waxa la amray hatta intuusan safrin gurigiisa markuu joogo dadkii salafka waxay dhihi jireen ma aanu tagi jirin ilaa waxa aanu habeenkii ma aanu seexan jirin ilaa waxaanu barkintayada ayaanu gashan jirnay dardaarankayaga waana waxyaalaha muslimiintu in dhawaalaba ay ka tageen qofku wuxuu isleeyahay maaragtay waad noolaan doontaa ilaahay baa garanaya naftaan intay jirto xajka runtii hawlo badan baa maaragtay ku taxalluqda dad badan baa isku imaanaya wax kasta iska dhici kara inaad diin lagu lahaa ama dad aad ku lahayd ama wax rabtid inaad dardaarantid ayaa loo baahan yahay nasaaixda muhiimka ah qofka xaajiga loo dardaarmayo waxa kamid ah qofka xaajiga in uu raaco dad wanaagsan oo rafaqa saalixa dad culimo ah dad diintan maaragtay hadhow wixii ay su'aalo uu qabo uga jawaabi kara inuu raaco laana ilaahay wuxuu leeyahay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waxa kale oo muhiim ah oo in kula dardaarmayna in aad barataan oo akhridaan intii xajka aadin sida xajka loo guto sida loo umraysto maaragtay in qofku uu barto sida qofka muslimka arkaanta ma la yatimu alwajib illa bihi fa huwa wajib wixii waajibkii uu santaam ku noqonin in isaga la ogaado ama la sameeyo ma waajib ay noqonaysaa qofka salaadii waa inuu barto sida loo tukado xajkii waa inuu barto sida loo sameeyo walidaalka nabigu wuxuu dhahayay markii xajtu wadaaca litaakhudhu anni manasikakum maarag si aad iga qaadataan maarag khudhu anni manasikakum nawsa wariga qaata maarag sida loo guto xajka marka xajka waa inuu noqdo xaj ilaahay dartiis loo gutay sidii maaragtay nabi maxamed uu xajiyeen loo xajiyay waana labada shardi ee camalka soo saalix ah ee loo shardiyo oo ah al-ikhlaas lillah wa mutaba'atu nabiyhi sallallahu alayhi wasallam loo jeedo camalka saalix ah kaliya kuma fiino camalkan saalix yahay sidii nabi maxamed uu sameeyay waa ina u gudatay walidaalka camalka haduu ikhlaas ahaan shirki ayaa la yiraahdaa ama riya hadii uusan sidii nabiga aan loo gudan si ka gadis loo gutana bid'a ayaa la yiraahdaa maaragtay marka ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta xajinaya xajkooda inuu fududeeyo iyagoo saalimiin oo qaanimiin ah oo camalkooda la aqbalay ilaahay inuu guryahooda iyo wadankooda ku soo celiyo ilaahayna inuu fududeeyo xajka ayaa ilaahay ka baryaa subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala xalaqooyinka dambe waxaan wahdi doonaa sida ugu loo guto xajka iyo anwaacda xajka ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.